بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وأنا محمد رزاق عبد الله صاحبي المركز اللي كسر دوادا عشرين امتحانها يعني وهليني Excel accounting. سمعتنا حربا إن إنسو قد بيو عشر كسابسن budgeted income statement. سيدا income statement يقول الله budget كريا. income statement يقول وبيان كشيء فإذا قصارها مركزي شركة هذا فإذا إيه خسارها مركز إنه يحكوا حرن تاعي الدخل هذه كسو قليه قرشات كابحية مركز تو الدخل كسو قليه وبدنيه وكبدنيه قرشات كذا حكوسو بحدونه وفائده مركز تو قرشات كذا أي كبدن تاعي الدخل جاجونه وحكوسو بحدونه حين قندونا خساره سؤال كانوا حكوا هاي السنة والتيبل تيبل كاسو أنا وطلقنا إني نكفه إنه habka loo qorsheeyo income statement so halkan waxaan ku haysanaa waa service revenue oo adeega aan qabanay dakhliga inaga soo galay so waan sii qiyaasnay oo waan sii saadaalinay waxaan ku qiyaasnay bishii January dakhliga inaga soo galay inuu yahay 2000 soo kale February 2500 March 2800 April 3000 May 3300 June 3500 waxaan waa la sii saadaaliyay soo markii la saadaalinayna ma ahayn wax la iska qorqoray ee waxa mar walba la diyaarinayo xogta tixraac laga dhigtaa sanadihii hore soo sanadihii hore waxa soo faa'iido jirtay ayaad budgetka ku saleynaysaa inta badan soo halkan waxaan ku haysanaa waa expenses waa qarashaadaha aan rajeynayno inaynu bixino waxaan u baahanahay amountigooda ama lacagooda inaynu helno so si aan lacagooda helno halkan waxaan lagu siiyay prestige ahaan so salary waxaan leeyahay waa 20% of the service revenue 20% dakhligeenu waa salary 12% waa rent 5% dakhligeenu waa supplies 8% waa maxaa la yiraahdaa utilities 10% dakhligeenu waa insurance 6% waxay noqon doontaa miscellaneous waxaa isweydiinaysaa ninkan prestige kan halkuu ka keenay so prestige kan wuxuu ka yimid waxaan u fiirinay sanadihii hore ayaan tixraac ka dhiganay so sanadihii hore haddii salarygeena uu ahaa 18% of the service revenue 18% so haddana waad qiyaasi kartaa so exchange yar ka dhacay oo kaliya aad ku saleynaysaa so marka waxaan wax kale ma aha prestige wax meel kale kama keenin sanadihii hore ayaan dib eegis ku sameeyay so sanadihii hore ayaan ka soo xigtay so marka budgetku waa nooca so marka waxaan u baahanahay inaan soo helno amountiga salaries so salary amountigiis inaan soo helnaan u baahanahay so laba qaab waan ku soo heli karnaa laakiin qaabka ugu fudud inaan isticmaalno ayaa muhiim ah inaan salary expense mid kasto iyaga kamid ah expense-yada inaan si gooni ah u soo xisaabin aynu sameyn karnaa waana equal waana maxaa la yiraahdaa service revenue waa January waxaad ku dhufataa prestige of salaries ku dhufo qaabkaas inaan ku keeno oo haddana sanadka dambe sidaas la mid ah aan u xisaabino equal aan laano 20 prestige oo lagu dhuftay markaasi prestigekeeda so qaabkaas aan oqon laakiin qaabkaasi wuxuu qaadanayaa waqti aad u fara badan sidoo kalena wuxuu xiise gaar ah uusan u yeeli doonin Excelka in la isticmaalo so marka waan iska tirtiri doonaa waxaan isticmaali doonaa hab aad u fudud habkaas oo ah marka hore waxaan soo highlight garin doonaa salary expenses oo dhan min salary ilaa ay miscellaneous ayaan soo highlight gareeyay dan kadib waxaan dhihi doonaa equal markaan dhaho waxaan soo qaadan doonaa service revenue amountigiisa ee bishii January marka ay soo qaado waxaan isweydiin doonaa laba su'aalood su-aasha koowaad waxay tahay maadaama halkan waxaan ku haystaa column oo iyo row so columnku waa C rowguna waa 6 su-aasha aan isweydiinayaa waxay tahay godkani C6 ma waxaan rabaa inuu hoos soo dhaqaaqo oo C7 yimaado
mise waxaan rabaa message inuu joogaado, waxaan rabaa message inuu joogaado. So marka rowga ayaa waxaan ka hormarinayaa calaamada dollarka, waxaan dhihi doonaa F4. So ujeeda soo rowga waa 4, waxaan ka hormariyay calaamada dollarka. So markaa intaas sameys kadib waxaad dhihi doontaa su-aasha kale oo isweydiinta mudan waxay tahay sidoo kale salariaska ma waxaan rabaa inuu dhankaan u dhaqaaqo 2000 daan inay dhankaan kale u dhaqaaqdo oo dhankaan u socda miyaan rabaa haa waan doonayaa. So marka ma taabanayo dan waxaan dhihi doonaa lagu dhuftay, waxaan ku dhufan doonaa prestige-ka oo salariaska. So prestige markaa ku dhufto laba su-aal ayaan isweydiin doonaa iyada. So maadaama aan haysto row iyo column, so C18kan ma waxaan rabaa inay hoos soo dhaqaaqdo hadhow oo row office rentiga uu yimaado haa waan rabaa. So waxaan rabaa hadhow office rentiga markay 2000 uu soo dego office rentiga yimaado inuu ku dhaco office rentiga prestige-kiisa. So ma xiraayo marka, laakiin si dhankaan inuu u dhaqaaqo miyaan doonayaa hadhow salariaska dhankaan inuu u dhaqaaqo miyaan doonayaa waa may. maadaama aan doonayn dhanka column-ka ayaan ka xiri doonaa oo waxaan dhihi doonaa F4. column-ka ayaan calaamad dollarka hormarsiinayaa. So ujeedaa sooma column-ka waa C, waxaa ka hormarsiya calaamada dollarka. dan waxaan dhihi doonaa control enter. So ujeedaa sooma. So godka u dambeeya haddaan tago alla markii dhigsiiyo waa ujeedaa wuxuu isku dhiftay amountiga ee June iyo wuxuu isku dhiftay prestige-keeda sooma. soo kale haddaan tago miscellaneous-ka godkaan haddaan tago wuxuu isku dhufanayaa fiir C4 oo wuxuu ku dhufanin doonaa C23. So kulli godadka si directly ayay u haystaan. soo kale waxaan rabaa inaan sameeyo total expenses. So qarashaadkan oo dhan inaan isku soo dardaro ayaan doonayaa. So wax kale ma sameynayay, waxaan haalaad garan doonaa godadkaas. markaan haalaad gareeyo godadkani waxaan dhihi doonaa equal sum bracket bracket markaan furto waxaa soo dardari doontaa inta C6 up to C11 isku soo dar. dan waxaan dhihi doontaa control enter. So waa haystaa sooma. the second waxaan u baahanaa income before tax inaan soo saaro. So mararka qaar waxaa suurtagal ah ganacsigaaga inaan taxi ama wax canshuur ah la saarayn. haddii wax canshuur ah la saari doonin booskan waxaa noo imaan doona net income. haddii canshuur ay jirtana canshuurta ayaan ka jaraynaa. So aan tusaale ahaan usoo qaadana canshuurta. So waa cilmi dheeraad ah oo kale inta badan. marka waxaan sameyn doonaa idan waan haalaad gareynayaa. So markaan haalaad gareeyo wax kale ma sameynayay, waxaan dhihi doonaa equal surface revenue-ga ayaa waxaad iga jaraysaa total expense. dan waxaa dhihi doonaa control enter waa ujeeda sooma. so tan kale u dambeyso aan rabo waxay tahay inaynu soo saaro waa income tax. so amountiga income tax ee bil walba ayaan rabaa inaan soo saaro. canshuurta bil walba la iga rabo inaan soo saaro ayaan rabaa. si aan usoo saaro waxaan sameyn doonaa waxaan haalaad garan doonaa godadkan. so markaan haalaad gareeyo godkan markaan haalaad gareeyo waxaan dhihi doonaa equal markaan dhaho waxaan sameyn doonaa income before taxi ayaa waxaan soo qaadan doonaa. so income before taxi markaan soo qaato waxaan ku dhufan doonaa taxi. so taxi markaan ku dhufto waxaan sameyn doonaa waxaan ka xiri doonaa dhanka column-ka. so hadhow maxaa lahaa taxi 25 ka hadhow wuxuu aadi doonaa halkan haddaad sidaan ku dhaafo oo control enter haddaan dhaho godadkan kale soo hir dhan waxay noqon doonaa 0. so marka waa inaan xiraa. marka haddii control enter aan dhaho fiir godadkan kale sababta maxay tahay fiiri wuxuu haystaa halkan kan fiiri wuxuu haystaa halkan. so sidaas say u dhicin waxaan u baahanayaa marka inaan dileedo then equal aan dhaho. so equal markaan dhaho income before taxi markaan soo qaato oo lagu dhuftay aan dhaho waxaan soo qaadan doonaa taxi rate-ka ayaan soo qaadan doonaa 25 markaan soo qaato wax kale ma sameynayay, waan xiri doonaa oo dhanka column-ka ayaan ka xiri doonaa. F4 ayaan dhihi doonaa calaamad dollarka ayaan column-ka ka hormarsiinaya. dan waxaan dhihi doonaa control enter. so ujeedaa soomaad mid kasto waa u haystaa, mid kasto formuladiisa gaar ayay ugu xiran tahay. okay so the last waxaan u baahanahay net income-ka inaan soo saaro. so net income-ku waxaa lagu heli doonaa si aad bay u fududahay. marka hore haalaad garee salalkan markaa haalaad garees kadib equal leh
income before tax waa dakhliga faa'iidada canshuurta ka hor ayaa waxaynu ka jaraynaa canshuurta. markaan ka jarno waxaan dhihi doonaa control enter. so sidaas ayay mid kastana formuladeeda ayay haysataa. so marka qaabkaas ayaa income statementiga loo budget gareeyaa. so marka hore waxaan sameynay waxaanu soo saadaalinay oo aan soo qorsheynay dakhliga ina soo galaya surface revenue-ga 6 bil ee sanadka ugu horeysa ayaan soo saadaalinay. sidoo kale expenses-kuna as a percentage ahaan ayaan usoo saadaalinay. so markaan soo saadaalinay kadib wax kale ma sameynine surface revenue ayaan waxaan ka jirnay total expenses, then waxaa noo yimid net income before tax. so net income before taxi ayaan waxaan ka jarnay income taxi, then waxaa noo yimid net income. so qaabkaas ayaa income statementiga loo budget gareeyaa. so cashirkeena maanta halkaas wuxuu geeyaa. waxaa idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.